inta aana filimka bilaabin waxaan xasuusinayaa inay YouTube-ka subscribe dhaadin muuqaalkan aad like saarto waa kuma asantaa daawashadaada. Filimkeenu waxa uu ku bilaabanayaa wiil lagu magacaabo Kitty. Maalin ayuu aabihii Tom iyo dad kale ayuu ugaarsi u raacay. Bartilmaameedkooduna waxa uu ahaa dibi duurjoog ah oo daaqaya meel aan ka fogeyn. Markii si taxaddar loo qorsheeyay ugaarsiga, Tom ayaa calaamad bixinaya. Ugaarsadayaashiina waxa ay si tartiib ah ugu dhaqaaqeen, waxayna bilaabeen inay warmahooda tuuraan si ay dibidu ugu cararto dhanka godka. Markii ay ka dhacaan si ay ugu guuleystaan ugaarsigooda, wax walba si fiican ayay u socdeen ilaa uu hal neef si lama filaan u soo jeestay dhanka ugaarsadayaashii. Toos ayuuna ugu soo booday Kitty maadaama ay ahayd markii ugu horeysay oo Kitty ugaarsi ka qayb qaato. Cabsi ayaa qabatay wuuna istaagay isagoo aan dhaqaaqi karin. Dibigii waxa uu Kitty ku dhuftay dhulka balse ma uusan joogsan. Waxa uuna mar kale u soo laabtay Kitty. Geesihiisa ayuuna Kitty ku qaaday isagoo u jiiday dhanka godka. Aabihii Tom waxa uu isku dayayaa inuu badbaadiyo wiilkiisa. Waxa uuna waran ku dhuftay caloosha dibiga. Inkastoo uu dhaawacmay haddana waxa uu godka ku tuuray Kitty. Tom iyo ugaarsadayaashii kale waxa ay u carareen dhanka godka. Waxa ayna arkeen Kitty oo ku dhagan dhagax. Inta aan wali wax laga qaban, Kitty ayaa gacmihii u sii baxsadeen. Wuuna dhacay nasiib wanaag. Kitty si toos ah uguma dhicin dhulka. Wuxuu ku dhacay dhagax weyn oo dhexda ku yaala. Wuuna miir beelay. Tom waxa uu rabay inuu godka hoos ugu soo dago si uu u badbaadiyo wiilkiisa, laakiin ugaarsadayaashii kale ayaa ka joojiyay. Waxa ayna u sheegeen in uusan badbaadin karin. Waxa kale ay xasuusiyeen in cunto ay tahay in ay geeyaan tuulada ka hor inta uusan imaan barafka. Tom habeenkii oo dhan waxa uu dul fadhiyay godka isagoo ku qaylinaya magaca wiilkiisa, rajaynaya inuu nool yahay. Subaxii isaga oo murugaysan ayuu waxa uu sameeyay duco sagootin ah, wuxuuna raacay kooxda, laakiin Kitty weli ma uusan dhiman. Daqiiqada kadib Gorgor ayaa ku dul yimid. Gorgorku waxa uu u maleynayay Kitty inuu dhintay, uuna yahay ugaarsi sahlan, balse Kitty ayaa si dhaqso ah isaga eriyay. Wuxuuna arkayaa in uu keligii ku xayiran yahay dhagaxa, cidna uusan haysan. Inkastoo uu cabsanayo, haddana go'aan ayuu qaatay. Wuxuu bilaabay inuu hoos u dago. Cagtiisa way siibatay, balse si dirqi ah ayuu ku qabsaday. Hoostiisana roobkii ayaa u bedelay webi. Markii uu ogaaday tan inay tahay fursaddii uu ku badbaadi lahaa, Kitty wuu isdhiiriyay. Waxa uuna ku booday biyaha. Subaxii waxa uu ka soo toosay geeska biyaha. Markii uu istaagay, xanuun daran ayuu ka dareemayaa lugtiisa. Markii uu kabaha furo, waxa uu arkayaa lugtiisa oo dhaawac xun soo gaaray. Waxa uu ogaaday inuu cidna haysan, dhulkuna yahay duur aan la deganayn. Waxa uuna is yiri waa inaad adkaysaa si aad u noolaato. Waxa uuna laba dhagax dhex geliyay lugtiisa si uu isugu aadiyo lafaha. Kadibna si uu lugtiisa u adkeeyo, ul ayuu ku xirayaa isagoo weli dhaawac ah. Wuxuuna u dhaqaaqay dhinaca buurta. Halkaas ayuu ka helay dhagxantii aabihii Tom oo uu isticmaali jiray caadooyinka markii qof ay ka dhimato. Markii uu arkay aad ayuu u murugooday. Markaas ayuu maqlayaa ciida yeyda. Markii uu wareegay waxa uu arkayaa yey badan oo ku soo ordaysa. Waxa uu ordayaa si xawaare leh. Markii uu arkay in uusan ka baxsan karin, wuxuu fuulay geed qalalan. Hal yey ayaana lugta ka qabsatay. Kitty waxa uu soo bixinayaa mididiisa, wuxuuna ku dhuftay yeydii. Dhulka ayayna ku dhacday inkastoo ay dhaawacantay yeydii. Habeenkii oo dhan geedka hoostiisa ayay joogeen. Subaxii yeydii kale way tageen, waxayna ka tageen midkii dhaawaca ahaa. Inkastoo uu cabsi ka qabay Kitty, waxa uu soo dhawaanayaa yeydii dhaawaca ahayd. Wuxuu rabay in uu dilo, laakiin markii uu arkay xaaladeeda liidata, naxariis ayaa ku dhalatay. Waxa uuna afka kaga xiray xarig. Waxa uuna ku qaaday garbihiisa. Waxa ayna galeen god u dhow. Habeenkii way wada seexdeen. Subaxii asiga oo dhir daawo ah isku daweynayo ayuu ogaaday in yeydii xarigga iska furtay. Ilkaheedana way soo bixisay, balse Kitty wuu deganaa. Si tartiib ah ayuuna biyo ugu shubay. Markii hore way iska diiday, balse dabeecadda degan ee Kitty ayay ku qanacday. Kadibna way cabtay. Kitty waxa uu bilaabayaa in uu daryeelo. Waxa uuna ka saarayaa cayayaanka ku jira dhaawaceeda maadaama ay cunto la'aan jirtay. Kitty waxa uu ugaarsaday bakayle maalintii xigtay. Markii uu keenay oo karinta bilaabay, yeydii ayaa isku dayday in ay la baxdo, laakiin Kitty ayaa u diiday. Waxa uuna iska dhigay inuu cunayo hilibka cerinka. Yeydiina way cabsatay wayna fadhiisatay. Markii uu kariyay hilibka ayuu la wadaagay, isagoo u cadeeyay in sharcigaas loo baahan yahay. Maalmo kadib Kitty waxa uu fiicnaatay lugtiisa. Waxa uu go'aansaday inuu dib ugu laabto gurigiisa ka hor inta aan barafku xoogaysan. Waxa uuna u sheegayaa yeydii inay dib ugu laabato duurka, laakiin markii uu dhaqaaqay yeydii ayaa ka daba socotay. Kitty wuu xanaaqay, ul ayuuna ku tuuray si uu isaga reebo, laakiin yeydii halkii ay ka carari lahayd ushii ayay soo qabatay wayna u keentay. Waxa uu arkayaa yeydii oo gees fiirinayso ka hor inta uusan fahmin waxa dhacay. Waxa uu arkayaa koox doofaar ah oo meel fog jooga. Yeydii si dhaqso ah ayay ugu ordaysaa si ay dhinaca Kitty ugu soo raacdayso. Kitty-na wuu istaagayaa isagoo warankiisa gacanta ku hayo. Doofaarkii markii uu soo orday, Kitty si fiican uguma dhufan. Doofaarkiina waa baxsaday. Yeydii way niyad jabtay. Waxa ayna fahantay in fursadoodii ay lumiyeen, laakiin waqti kadib waxay bilaabeen inay isla shaqeeyaan. Kitty waxa uu bixiyay magaca Alpha, waana halka uu ka bilowday xiriirkooda rasmiga ah ee saaxiibtinimada. Alpha waxay bartay Kitty sida loo ugaarsado, loogu noolaado si wacan. Habeenkii Alpha waxay la seexan jirtay Kitty si ay dhaxanta uga celiso. Kitty waxa uu bilaabayaa inuu ku raaxaysto safarka iyo saaxiibtinimadeeda, laakiin jiilaalkii markii uu xoogaystay baraf ayaa dhulka dhan daboolaya. Iyagoo duruuf adag ay hayso, haddana waxa ay sii wataan safarkoodii. Maalin ayaga oo dul
maraya webi baraf noqday. Barafkii ayaa dilaacaya, Kiita waxa uu ku dhacayaa biyaha qabow, waxa uuna ku xayirmay barafka hoostiisa. Alfa waxa uu isku dayayaa in uu jabiyo barafka si uu Kiita uga soo saaro, balse waa ku guuldareystay. Kiita ayaana ugu dambeyntii mididiisa ku jabiyay barafka. Alfana waxa uu ka caawinayaa inuu ka soo baxo. Maalintii dambe Kiita waxa uu arkayaa nin fadhiya teendho horteeda. Wuxuu dareemayaa rajo. Markii uu u soo dhawaaday, waxa uu ogaanayaa in ninku uu meed yahay. Teendhadina waxa uu ka raadinayaa cunto. Wax faa'iido lehna ma uusan helin. Inkastoo uu niyad jab ku dhacay, haddana waxa uu sii wataa safarkiisa, balse khatar cusub ayaa soo korortay. Dhinac waxaa ka soo socdo duufaan baraf ah, dhinaca kalena waxaa ka soo socda yey. Kiita si dhaqso ah ayuu u ordayaa isaga iyo Alfa. Markii ay galeen god, duufaantiina waxa ay ku dhufatay banaanka. Yeydu ma soo geli karto godka. Gudaha godka, Kiita waxa uu boodayaa badbaado, laakiin Alfa waxa ay muujinaysaa feejignaan. Si lama filaan ah, shabeel madow ayaa ka soo boodayay gidaarka. Weerar lama filaan ah ayuuna ku qaaday Kiita inta uusan gaarin. Alfa si geesinimo leh ayuu ugu booday si uu u badbaadiyo Kiita. Kiita wuu baqay, balse waxa uu ogaaday haddii uusan badbaadin Alfa inuu dhimo doono. Wuxuuna muujinayaa geesinimadiisa. Fallaarta ayuuna ku dhuftay shabeelkiina wuu dhacay. Alfana waa dhaawac. Isagoo dhaawaca ayuu ku soo ag dhacay Kiita. Markii uu arkay xaaladiisa, Kiita waxa uu go'aansaday inuu badbaadiyo saaxiibkii, kaasoo marar badan badbaadiyay. Wuuna daaweynayaa. Subaxii waxa ay sii wataan safarkooda. Kiita ayaana ku qaadaya garbihiisa Alfa. Inkastoo xaaladdu xumaanaysay, Kiita marnaba isma dhiibin. Wuxuuna Alfa la maray buuro iyo dhul adag, habeen iyo maalin. Ugu dambeyntii waxa uu arkayaa tuuladii. Markii uu gaaray, Kiita wuu dhacayaa isagoo Alfa gacanta ku haya. Aabihii Tom wuu naxayaa markii uu arkay Kiita oo weli nool. Wuu u orday. Hooyadii oo rajada ka quusatay ayaana faraxday. Way timid iyadoo ilmeynaysa. Inkastoo Kiita daciif ahaa, haddana waxa uu dareemayaa farxad. Markuu la kulmay waalidkii, codsiga ugu horreeya uu sameeyana waxa uu ahaa badbaadiye Alfa. Daqiiqado kadibna, Kiita wuu miir beelay. Markii uu soo miirsaday, waxa uu helayaa war la yaab leh. Alfa ayaa dhashay ilmo yar. Aad ayuu ugu farxayaa. Saaxiibtii ay safar dheer soo galeen. Ixtiraamka uu haayana wuu sii siyaadayaa, maadaama ay marar badan badbaadisay. Aad ayaa u mahadsantahay haddii aad nala soo gaartay halkan. Haddii aad ka heshay filimkan, fadlan muuqaalka like saar, YouTube-kana subscribe dheh. Aad ayaan u mahadsantahay.